رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيا قاضي طلاب dhaawici karta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka gadaal markii xubnaha diblomaasiyiinta ay ka soo jeeda dalkiisu uu amray in marnaba aysan ka hadli karin aqoonsiga Somaliland ay siisay Israa'iil iyo mowqifkooda kaga aadan arrintaasi waxaan idin soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan amarkan uu bixiyay Abiy Ahmed haddii aad ugu cusubtiin ku soo biiro page-kayga kana mid noqo saaxiibada ugu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment-ka kaga soo dhiiba hagaagtan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa qaaday tallaabo inay keeni karto isla markaana ay dhaawici karto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama Abiy Ahmed uu ka mid yahay xubnaha ay villa Soomaaliya sida tooska xiriirka oo la sameysay ee doonaysay in ay soo saaraan mowqifkooda cambaareynta ku aadan waxa loogu yeeray aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland oo qayb ka ah Soomaaliya Abiy Ahmed ayaa la sheegay inuu ka gaabsaday inuu cadeeyo mowqifkiisa tallaabada ay Israa'iil ay qaaday wuxuuna taa bedelkeeda faray xubnaha diblomaasiyiinta iyo ergooyinka ku matala ururada jira inaysan ka hadli karin qadiyadan oo ay gabi ahaanba ka gaabsadaan wuxuuna amray in tani ay uga gol leeyihiin sida xoguhu ay tilmaamayaan isagoo waan u cadeynin sababta ka dambeyn karta in Ethiopia aysan mowqif cad ka qaadan arrintan iyada oo dunida oo idil iyo dalalkii saaxiibada dhowlaha iyo kuwa kale ee Soomaaliya taageerada xooggan siiyaba ay si mideysan u diideen kuna tilmaameen tallaabo xadgudub ku ah madaxbanaanida Soomaaliya isla markaana keeni karta amni darre ka dilaacda geeska Afrika isla markaana ay mowqif adag oo mideysan ay soo saareen kuna garab istaageen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay difaacato midnimadeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer oo hore inta aysan arrintan soo isbixin safarro kala duwan uu ku bixiyay dhinaca Ethiopia xogu waxay tilmaamayaan in Abiy Ahmed arrintan uu kala hadlay hase ahaatee Abiy Ahmed ayaa aad uga cagajiiday ka jawaab celinta degdega ah ee ku qotantay dalabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay keentay ugu dambeyn cabsidii villa Soomaaliya ay qabtay in Israa'iil ay soo saarto go'aanka ay ku aqoonsanayso Somaliland Abiy Ahmed waxa la rumaysan yahay in danaha Imaaraadka iyo Israa'iil si aad ah u ilaalinayo iyadoo uu ka doorbidayo dalka dariska la ah ee Soomaaliya labadaasi dawladood oo la rumaysan yahay inay cadaadis xooggan ku saarayaan in marnaba uusan ka hadlin dalal kale oo dhowr ah ayaa jiray oo sidan kale uga gaabsanayay inay ka hadlaan arrintan hase ahaatee dawlado kale oo saaxiibo la ah ayaa ku cadaadiyay ugu dambeynna banaanka ayay soo saareen mowqifkooda iyo garab istaaga ay u muujinayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wali dawladda federaalka ah ee Soomaaliya war rasmi ah kama soo saarin arrinta la xiriirta in diblomaasiyiintii Ethiopiaanka ah la faro inaysan ka hadli karin talaabadii maalintii Jimcaha ahayd ee Israa'iil ay ugu soo xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya وكما سنتين لا جنات كمقال كان هدي أدلة سو قارتين نبت قليو مدحوين حسن شيخ محمود إيه رئيس الوزراء حمزة عبد البره قوان ذاك أيه كجاري دونان حبنا كم ده قلها وزيرة وكسو جدا ديجانا ده سومالي لان أو ولي موقف كودا عن عبدين هل كقوة وزيرة ده حلبانا ده ما أنت أيسن حاضرين فدقي قلها شعبك أي أبورتي شك يتوهم وين وحنا دي سو قدبين دونا حقا إيا معلومات كسابسان أريمهان سوري هذا صاحب يال دمانتينا هدي هدي عصبتين كسو بير بيجكي وكم نوع صاحب بده وحران أركتي هذا أنا غايب تفاعل أما كومنتي كجسو دي بحاجة كان كوب اللعبة مدحوين حسن الشيخ محمود وهردم أذك وكجا جواب علينا يطلع بده حد جذب كقوة مدح بناني ذا الصومالية أي سميسي إسرائيل إسلام مركنا ودذل بدن كوب بحني دينca diblomaasiyadda sidii looga guuleysan lahaa meeshana looga saari lahaa waxay ugu yeereen aqoonsi oo ay si toos ah ugu aqoonsadeen maamulka Somaliland ayaa imikan waxa uu muujada siyaasadeed oo lama filaan ah uu ka wajahaya xubnaha deegaan ahaan ka soo jeeda Somaliland ee ku jira golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wada hadallo toos ah yeeshay kadib markii madaxweynaha uu jeediyay khudbadiisii maanta isla markaana waqtigii koobneed ee loo qabtay xubnaha ka soo jeeda Somaliland inay mowqifkooda ku cadeeyaan
uu gawaabsi ku sii dhow yahay ayaa waxa uu kala hadlay waxa keenay ee ku horgudban in xubnaha ka soo jeeda Somaliland xilligan ay ku dhiiran waayaan in mowqifkooda ku aadan go'aankii ka soo baxay gumeystaha Israa'iil inay caddeeyaan ee Somaliland dal gaar ah loogu aqoonsaday. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa isla gartay sida xoguhu ay tilmaamayaan in muddo kooban loo qabto xubnaha golaha wasiirada sidoo kalena ah xildhibaano ee ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay si degdeg ah mowqifkooda ku caddeeyaan wax ka yar 24 saac gudahooda maadaama ay ka gaabsadeen ka hadlidda qadiyadan weyn ee dhaawici karta midnimada iyo qarannimada Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la tilmaamay in carro xoogan uu ka qaaday in fadhigii maanta uu ka waayo xubnaha golaha wasiirada ee ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Somaliland iyadoo uu qorsho u ahaa marka uu khudbadu jeediyo kadib in warbaahinta ay kula hadlaan afaafka hore ee xarunta shirarka ee Villa Hargeysa iyaga oo si cad u sheegaya mowqifkooda ku aadan xadgudubka ay Israa'iil ku sameysay madax banaanida Soomaaliya. hase ahaatee midaasi mid ka duban oo lama filaan ah ayuu madaxweynaha la kulmay oo guud ahaan waa uu ka waayay fadhigii maanta xildhibaanada deegaanada Somaliland ka soo jeeda ee ku jira xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. saacadaha kooban ee loo qabtay inay mowqifkooda ku caddeeyaan xubnaha ka soo jeeda Somaliland haddii ay ka soo dhalaali waayaan oo ay siday tahay uga soo bixi waayaan waxa suurtagal ah in xilalkooda ay waayaan si la mid ahna lagu xanibo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyaga oo wajihi doona eedo culus oo la xiriira khiyaano qaran. wasiir Dube wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta isaga tagay xubinnimadii golaha isagoo oo sheegay inuu isaga casilay sabab la xiriira dhinaca Somaliland uu sheegay in uu la dareen yahay dadka reer Somaliland oo markan u dabaaldegaya wax loogu yeeray aqoonsi oo ay siiyeen gumeystaha Israa'iil. Dube waxaa la rumaysan yahay in tani ay keentay isla markaan ay soo dedejisay in wada hadallo uu la galay Somaliland ay banaanka keento. waxaase jirta tuhunno ah in Cabdiraxmaan Cirro uu ku lug leeyahay in xubnaha ka soo jeeda Somaliland mowqifkooda si cad ay ugu dhiiran waayaan iyaga in ay caddeeyaan iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wixii xogay macluumaad ku soo kordha adiga ugu horeyn doono nabadgelyo.